laga yaabaa inaad isweydiiso aabahani sababta uu ooyay ama indhihiisa ilmada ka keentay. Aabahan haddii aan taariikhdiisa oo kooban ku siiyo, waa askari Maraykan ah kana soo dagaalamay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Afghanistan iyo weliba Ciraaq. Haddaba aabahan aynu u wada jeedno waxa uu dhalay hal wiil. Halkiisii wiil ayaa waxa uu ku ogaa waxbarashadii markii uu rajeynayay inuu meel fiican ka gaadhay ayaa waxaa odaygan lagu marti qaaday barnaamij uu kasoo qayb geli doono wiilkiisii. balse odaygu waxa uu rajeynaya wiilkiisii oo sita jaamacadihii uu u diray waxbarashadii wanaagsaneed uu ka bixiyey isagoo sida natiijadeedii. balse waxaa loo sheegaya mar kaliya qofka hor fadhiya inuu yahay wiilkiisii. dhammaan dadkii goobta ku sugnaana fajcis ayay ku noqonaysaa. wadamada reer galbeedka wax weyn lama aha inuu qofku iska dhigo siduu rabo ama nin ama naag wuxuu doonayo, balse waxay leeyab ku noqotaa iyagoo haddana xorriyadaas heerkaa gaadhay doo haysta oo weliba sharciya ka samaystay. haddana qofna ma jecla wiilkiisa ama gabadhiisa in xaaladan ay la soo gudbonaato. wariyu waxa uu weydiinayaa sidee ayuu dareenkaagu yahay. qof la weydiiya dareenkiisa marka marxaladan oo kale xaaladan ay marayso, wariyuhu dhab ahaantii waxa uu la qaybsanayaa murugada aabahan haysata, balse shaqadiisa ayuu gudanayaa. aabuhu saynu wada jeedno murugadiisa iyo weliba ilintiisa waa xejin kari lahayaa. wiilka kama qasna. weliba waxaa la weydiinayaa bal ka waran aabaha marxaladan aad gelisay. waxaa oranaya aabaha waxba igama gelin, choicekayga ayaan ciyaaray, xorriyadeyda ayaana noloshayda ku dabaraya. bal haddaynu dhegeysana aabahan dareenkiisa. aabaha waxaa la weydiinayaa maxaad dareenkaagan ama halkan aad ka odhan lahayd. wuxuu odhanayaa waa maxay inankayga baahida u geystay. dhab ahaantii dadku way warmurugoonayaan goobta ku sugan. odaygoo si wata hadalkiisa wuxuu yidhi, Thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad. Really bad. mar kale ayaa la weydiinayaa. wariyuhu waxa uu mar kale weydiinayaa sidee ayuu dareenkaagu yahay, maxaanad ka odhan kartaa marxaladan. waxa odhanayaa dhab ahaantii waa bad ama waa xaalad aada u xun, waanu ka xun yahay, annaguna waanu ka xunnahay. dhab ahaantii waxa aabaha ku dhacay. aad baan idin salaamaya asxaabteyda qaaliga ah. waxaan rajeynayaa inuu ilaahay dadka inaga samata bixiyo.